galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa 14 bisha February sanadkuna waa 2021 waxaadna haatan naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boggeena voasomali.com. idaacadana waxaa galabta idin soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daandure. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabnimo ee maantana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo maanta baarlamaanka hortagay iyo wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda siyaasadda Soomaaliya. waxaa laga maarmayn in si daacad ah looga wada xaajoodo caqabadaha ku horgudban hirgelinta heshiiska doorashooyinka ee la gaaray 17 Sebtembar 2020. waxaan soo dhaweynayaa dadaalada lagu doonayo in isfaham buuxa laga gaaro arrimaha doorashooyinka anigoo xoojinaya shirkii wada tashiga arrimaha doorashooyinka ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda in la qabto 15 bishan February. waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja. idinkoo bukooda iyo anoo baarax nabadeeda oo aan bogsaday shuushku waa naga baxayaaye oo ay baraani u kulmaan beriya raaskiinnu rabbi waxaan ka beegsanahayaa biligta dayreed. qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan. gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee sanadka Mareykanka Bob Mendes ayaa bayaan ka soo saaray waxa uu ugu yeedhay xasaradaha doorasho ee kasii daraya ee Soomaaliya kadib markii muddaxileedka madaxweyne Farmaajo uu dhammaaday iyada oo aan heshiis laga gaadhin fulinta doorashooyinkii hore loo qorsheeyey. Bob Mendes oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee dalkan Mareykanka lagana soo doorto gobolka New Jersey ayaa sheegay inuu aada uga xun yahay xasaradaha ka dhalan kara ismariwaaga siyaasadeed ee hadda taagan. waxaanu intaasi ku daray in tani ay halis weyn ku tahay xasiloonida guud ee dalka. golaha sanadka ee Mareykanka ayaa cod ku ogolaaday in si rasmi ah loo bilaabi karo dhageysiga dacwadda xilka qaadista madaxweynihii hore Donald Trump. qaranada madaxweyne Trump difaacaya ayaa ku dooday in aqalka odayaashu aanu sharci dastuuri ah u haysan dhageysiga dacwadda uu aqalka wakiiladu kasoo gudbiyey madaxweynihii hore, taasoo lagu eedeeyey kicin fal lagu ridi rabay dowladda kadib weerarkii ay taageerayaasha madaxweyne Trump bishii hore ku qaadeen xarunta koongareeska. codka ay aqalka odayaashu u qaadeen socodsiinta dhageysiga xilka qaadista Trump ee aqalka sare ayaa waxaa ugu codeeyey 56 mudane halka ay 44 kasoo horjeesteen. maanta iyo beri ayaa lagu wadaa in sanadku dhageysto doodaha labada dhinac oo kala ah guddi ka socda aqalka wakiilada oo dimuqraadi ah iyo qareenada difaacaya madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump. dhageysigaasi kadib ayuu sanadku u codayn doonaa xilka qaadista Trump, laakiin dimuqraadiyiinta oo hadda haysta aqlabiyadda sanadka ayaa u baahan in ay helaan ugu yaraan 17 mudane oo jamhuuri ah si ay dembiga ugu helaan madaxweyne Trump. dalka Myanmar waxaa maalintii shanaad galay dibadbaxyada looga soo horjeedo afgembiga uu sameeyey militariga dalkaasi isagoo xilkii ka qaaday dowladii rayidka ahayd ee dalkaasi ka talinaysay. barnaamijyada ayaa weli socda inkasta oo ciidamada ammaanku ay xoojiyeen adeegsiga awoodda ay dadka ku kala dareerinayaan. ciidamada Myanmar ayaa rasaas digniin ah kor u ridayay iyagoo sidoo kale biyo awood badan ku furay dadka banaanbaxaya, arrintaasi oo sida wararka qaar ay sheegayaan dhaawac u geysatay qaar ka mid a dadka mudaharaadaya. dhakhtar ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo ayaa laanta la hadasha Myanmar ee VOA-da u sheegay in isbitaalka caasimada Nay Pyi Taw uu ku daaweeyey 2 qof oo dhaawac ah, isagoo sheegay inuu rumaysan yahay in rasaas loo adeegsaday labadaasi qof ee dhaawac ah ee uu daweeyey. aad buu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warka caalamka inoo akhrinayay. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. aan ku horeynay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ee wakhtigu ka dhammaaday Maxamed Xuseen Roble oo maanta la hadlayay baarlamaanka ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay wado dadaallo lagu doonayo in lagu xalliyo khilaafka siyaasadeed ee ka dhashay doorashada. waxaa kaloo uu ka hadlay wixii u qabsoomay xukuumaddiisa 100 maalmood ee uu xafiiska joogay.
wariyaha v o eda seenab abuukar maxamed ayaa warbixintan muqdisho kasoo dirtay. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo hortegay baarlamaanka ayaa soo dhaweeyey shirka wadatashiga arrimaha doorashooyinka ee uu ku baaqay madaxweyne farmaajo in madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ay isugu yimaadaan 15 bishan, kaasoo ay sheegtay madaxtooyada in uu ka dhici doono magaalada Garoowe. ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in xukuumadda ay dadaal xoogan ku bixinayso fududeynta shirka iyo sidii loo dardargelin lahaa fulinta heshiiskii 17 Sebteembar 2020 ee hagayay hanaanka doorashooyinka dalka ayna meel mariyeen labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. xildhibaanada sharafta leh mudan yaali marweyn, waxaan soo dhaweynayaa dadaalada lagu doonayo in isfaham buuxa laga gaaro arrimaha doorashooyinka, anigoo xoojinayo shirkii wadatashiga arrimaha doorashooyinka ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda in la qabto 15 bishan February. ugu dambeyn, waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegayaa hore ayaan doorashooyin u soo qabsanay innaga oo intaan ka Itaaliyar. maanta waxaan haysanaa dhammaan aqoontii, kartidii, niyaddii aan doorasho ku geli lahayn. sida aan hortiina hore uga ballan qaaday, waxaan u taaganahay hirgelin doorasho xor iyo xalaal ah. xukuumad ahaan waxaa waajib shaqo naga saaran yahay hirgelinta doorasho hufan, xalaal ah, la isla wada ogol yahay. waxaan hortiina ummadda Soomaaliyeed uga caddaynayaa inaan u taaganahay hirgelinta doorashada iyo inaan wixii caqabado ah aynu hor yaalla ka wareejinno, fududayno, cidda u xil saaran u madax bannaanaato, awood siino guddiyada doorashada iyo hay-adaha kale ee shaqada. khudbadda uu baarlamaanka ka jeediya ayuu ra-iisul wasaaruhu diiradda ku saaray waxyaabaha u qabsoomay 100kii maalmood ee uu xafiiska joogay xukuumaddiisa, iyadoo uu dhammaaday muddo xileedka 4 sano ah ee hay-adaha dowladda federaalka ee Soomaaliya. xukuumaddu waxay ku guulaysatay kordhinta dakhliga. tusaale, dakhligii ka soo xarooda dekedda Muqdisho wuxuu sare u kacay 30%. 7 milyan 8 milyan ayaa la qaadi jiray, bishii November waxa uu gaaray 12 milyan iyo 600, taasoo noo suurtagelisay inaan sii joogtayno xuquuqda shaqaalaha iyo ciidamada. xukuumaddu waxay dardargelisay nidaam dayn cafiska, iyadoo fulisay dhammaan bartilmaamyadeedii looga baahnaa. xukuumaddu waxay xoojisay dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha, gaar ahaan waddooyinka isku xira magaalada Muqdisho gudaheeda, jidka weyn ee u dhexeeya Muqdisho Afgooye iyo kuwa kale. tiirka labaad oo ah tiirka horumarinta arrimaha bulshada, xukuumaddu waxay sii waday bixinta adeegyada bulshada iyo ka hortagga aafooyinka. waxyaabaha lagu guulaystana waxaa ka mid ah ka hortagga, la tacaalidda iyo u diyaargarowga masiibooyinka sida caabuqa COVID-19, anyaxa, abaaraha iyo fatahaadaha. xildhibaanada iyo dad badan ayaa filayay in ra-iisul wasaaraha uu si qoto dheer kaga hadli doono arrimaha doorashooyinka ee murunka uu ka taagan yahay. hase yeeshee, furitaanka kulanka gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal ayaa u sheegay ra-iisul wasaaraha in arrimaha doorashooyinka aanu ka hadlin, balse uu ku koobnaado oo keliya waxqabadkiisa inta uu xafiiska joogay. waxaana xildhibaanada golaha shacabka loo qeybiyey dugmiinta ka hadlaya waxqabadka maamulka uu ra-iisul wasaaruhu ka yahay Rooble. ra-iisul wasaare, waxaan kuu sheegaynaa, hore ayaad u soo gudbisay warbixintaada iyadoo qoraal ah. xildhibaanada way akhriisteen. waxaan rabnaa hadalkaaga inaad ku soo koobtid inta buuggaasi ku qoran oo warbixinta 100 maalmood ah. waxaan kaloo kuu sheegaynaa, baarlamaanka hore u ansixiyey sharci doorasho ee waddanka lagu aado. weliba mid keliya ma ansixinin, 2 sharci oo ansixiyey. mid waxaa la yidhi 2021 doorasho qof iyo cod ah lagu aado. kii asaga ahaa dowlad goboleedyadaa yidhi wakhtigan xaadirka sababo badan oo jira daraaddeeda doorasho laguma aadi karo. haddana baarlamaanka kama caajisin, kama hor imaan. baarlamaanka waxay yidhaahdeen haddii maslaxadda shacabka Soomaaliyeed ay ku jirto doorasho dadban oo u eg tii 2016 doorasho in lagu galo, haddana baarlamaanka waajibaadkii dastuuriga uu lahaa ayuu ka gutay. wixii doorasho ku saabsan annaga dhinaca annaga way ka soo dhammaatay. waxaa looga fadhiyaa xukuumadda iyo dowlad goboleedyada heshiiskii 17 Sebteembar lagu heshiiyey
heshiiskii doorashadii dadbaneed ee baarlamaanka federaalka uu ansixiyey fulinteedaa loo fadhiyaa. sidaa daraaddeed wax doorasho ku saabsanna warbixintaadii inayna ku jirin ayaan kuu sheegaynaa. inkastoo madaxtooyada soomaaliya ay shirka sheegtay inuu ka dhici doono magaalada Garowe, hase yeeshee Puntland ayaa ku dooday in aan lagala tashan shirka, iyadoo ku baaqday inuu ka dhaco magaalada Muqdisho ayna ka qayb noqdaan saamileyda siyaasadda. dhinaca kale, gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdulaahi ayaa dhankiisa soo dhaweeyay soo jeedinta Puntland ee ah shirka uu iclaamiyey mar kale madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo lagu qabto magaalada Muqdisho. qoraal uu soo saaray gudoomiyaha ayuu ku sheegay in shirkan ay tahay in ay ka qayb galaan dhammaan saamileyda siyaasadda Soomaaliya oo ay si gaar ah doorashadana u qusayso sida uu xusay. si kastoo ay ahaato 100kii maalmood ee ugu horeysay ee xukuumadda Rooble ayaa waxaa suurtagal noqon weysay in laga qabto dalka doorasho. ballanqaadyadii uu horay u sheegay ra-iisul wasaaraha ayaana ka mid ahaa hirgelinta doorashooyinka, iyadoo shirkii ugu dambeeyay ee toddobaadkii hore ee madaxda Soomaaliya ku yeesheen magaalada Dhuusamareeb uu ku soo dhammaaday natiijo la'aan. Seenab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho. dowladda Mareykanka ayaa waxa ay ka digtay xasradaha iyo halista dhabta ah ee dhiig daata oo ka dhashay ismariwaaga siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliya. qoraal ka soo baxay gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee aqalka sanadka Mareykanka ayaa ku baaqay in dhinacyada Soomaalida ay si degdeg ah ay xal uga gaaraan khilaafka hareeya doorashada. Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa waxa uu eegayaa arrintaasi iyo warar kaleeto oo la xiriira siyaasadda Soomaaliya. gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee aqalka sanadka Mareykanka ayaa bayaan ka soo saaray wax uu ugu yeeray xasaradaha doorasho ee ka sii daraya ee Soomaaliya kadib markii muddaxileedka madaxweyne Farmaajo uu dhacay iyadoo aan heshiis laga gaarin fulinta doorashooyinkii horey loo qorsheeyey. Bob Menendez oo ah dimuqraadi laga soo doorto gobolka New Jersey ayaa qoraalkiisa ku yidhi ismariwaaga haatan jira ee u dhexeeya madaxweyne Farmaajo, hogaamiyaasha dowlad goboleedyada iyo mucaaradka Soomaaliya wuxuu halis gelinayaa guulihii dagaalka adag loo soo galay 10kii sano ee tegey ee shacabka Soomaaliyeed uga soo hoyday siyaasad iyo dhaqaale. waxa uu intaa ku daray in tani ay halis weyn ku tahay xasiloonida guud ee Soomaaliya, isagoo yidhi aniga oo garawsan in Al-Shabaab ay raadin doonto fursad kasta oo ay uga faa'iidaysan karto qaska siyaasadeed si ay u ballaariso ololaheeda argagixiso, waxaan ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada inay degdeg u joojiyaan siyaasadda ku dhisan danaha shakhsiga ah ayna xalliyaan khilaafyada harsan ee ku aadan fulinta doorashooyinka. qoraalkan ka soo baxay senator Bob Menendez ayaa yimid saacado kadib markii shir degdeg ah oo ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay yeesheen ay ka soo saareen baaq ku aadan in madaxda Soomaalidu ay si degdeg ah dib ugu ambaqaadaan wadahadallada si loo diyaariyo doorashooyin cusub oo dalka ka dhaca. Barbara Woodward oo ah safiirka Britain u joogta qaramada midoobay oo akhrisay warmurtiyeed ay goluhu soo saareen ayaa tiri xubnaha golaha ammaanku waxay ugu baaqayaan hogaamiyaasha Soomaalidu inay si degdeg ah dib ugu laabtaan wadahadallada si wada jir ahna u wada shaqeeyaan iyaga oo fiirinaya danaha dadka Soomaaliyeed. waa in heshiis guud laga gaaraa qabanqaabada iyo qabashada doorasho loo dhan yahay, taasoo ah in ay ku dhacdo sida ugu dhaqsaha badan. hadalkan ka soo yeeray dowladda Mareykanka iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ku soo beegmaya xilli ay socdaan dadaallo la doonayo in hogaamiyaasha Soomaalidu ay mar kale isugu yimaadaan oo ay ku heshiiyaan habka qabsoomidda doorashada. madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa qoraal uu shalay soo saaray ku baaqay shir 15 bishan ka dhacaya magaalada Garowe ee Puntland oo ay yeeshaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa gobolada. hase ahaatee qoraal ay si kala gooni ah u soo saareen madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland ayay ku soo dhaweeyeen qabsoomidda shirka, waxayna ku taliyeen inuu shirkaasi ka dhaco magaalada Muqdisho lana ballaariyo ka qaybgalayaasha oo lagu daro saamiliyada siyaasadda. gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdulaahi oo isna qoraal soo saaray ayaa soo dhaweeyay baaqa qabsoomidda shirka, laakiin waxa uu taageeray soo jeedinta Puntland ee ah in shirku uu ka dhaco magaalada Muqdisho lana ballaariyo ka qaybgalayaasha. dhanka kale, warbixin uu soo saaray macadka Heritage ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho ayaa looga hadlay ismariwaagii hareeyey arrimaha doorashooyinka ee sanadkii 2020 iyo kulamadii iyo heshiisyadii arrimahaasi ay ka yeesheen madaxda dowladda federaalka iyo kuwa gobolada.
qoraalka ayaa lagu yidhi sannadkii 2020 waxa uu calaamadeeyey khalalaaso siyaasadeed oo la xidhiira doorashooyinka federaalka ee soo socda sababtoo ah khilaafaadka doorashooyinka oo aan weli la xallin sannadka 2021 wuu ka sii adkaan karaa haddii hogaamiyaasha siyaasadeed aysan helin wax ay isku raacaan si ay ugu guulaystaan qabashada doorashooyin xor iyo xalaal ah. Machadka Heritage ayaa sheegay in sannadka 2021 uu ahmiyad weyn u leeyahay Soomaaliya marka loo eego hannaanka dowlad dhiska iyo amniga dalka, laakiin ay ku xirnaan doonto habka iyo natiijooyinka ka soo baxa doorashooyinka sida warbixintan lagu yidhi. mahadsanid maxamed bashiir cabdiraxmaan ayuu ahaa kaasi. dhinaca kalena golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kulan uu shalay galab yeeshay waxa uu kaga hadlay arrimaha Soomaaliya. kulankan oo ay albaabada u xirnaayeen ayaa gabagabadii madaxweynaha golaha ee bisha February Barbara Woodward oo ah danjiraha dalka Britain u joogta qaramada midoobay ay akhrisay warmurtiyeedkii shirka. warbixin kooban oo haddaba shirkaasi ku saabsan waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur Bukhaari. kulanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxaa warbixin looga dhageystay ergeyga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Iswan. golaha ayaa ugu baaqay madaxda Soomaaliya inay si degdeg ah dib ugu ambaqaadaan wadahadallada si loo diyaariyo doorasho cusub oo dalka ka dhacdo. Barbara Woodward oo ah safiirka Britain u joogta qaramada midoobay ayaa akhrisay warmurtiyeedka ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. The members of the Security Council called for Somalia's leaders to resume their dialogue urgently and work together in the interest of the people of Somalia. waxay tiri xubnaha golaha ammaanka waxa ay ugu baaqayaan hogaamiyayaasha Soomaaliya inay si degdeg ah dib ugu laabtaan wadahadallada si wadajir ahna ay u wada shaqeeyaan iyaga oo fiirinaya danaha dadka Soomaaliyeed. waa in heshiis guud laga gaaro qabanqaabada iyo qabashada doorasho loo dhan yahay, taas oo ah in ay ku dhacdo sida ugu dhaqsaha badan. iyadoo taasi la tix raacayo ayaa golaha la ogeysiiyey ku dhawaaqista wadahadallo kale oo dhici doona 15 bishan February. golaha ammaanka ayaa walaac ka muujiyey fashilka ku yimid shirkii dhowaan ka dhacay magaalada Dhuusamareeb, kaas oo ay isku fahmi waayeen madaxweynaha dowladda federaalka ah iyo madaxda maamul goboleedyada. The members of the Security Council welcomed the efforts made by the leaders of the federal government of Somalia and the federal member states to find agreement on the implementation. waxay tiri xubnaha golaha ammaanka waxay soo dhaweeyeen dadaalka ay muujiyeen madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ee xubnaha ka ah dowladda si ay heshiis uga gaaraan dhamaystirka heshiiskii 17 Sebtembar ee dhigayay in la qabto doorasho dadban. golaha waxa uu og yahay in horumar la sameeyey, laakiin waxa uu ka walaacsan yahay in wadahadalladii Dhuusamareeb ay ku soo dhammaadeen heshiis la'aan. golaha ammaanka ayaa bogaadiyey doorka ay AMISOM ka qaadanayso wadahadallada dhinacyada Soomaalida. dhinaca kale, golaha ammaanka ayaa cambaareeyey weeraradii ay dhowaan Al-Shabaab ka geysteen Soomaaliya. waatan mar kale Barbara Woodward. The members of the Security Council condemned terrorist attacks by Al-Shabaab. waxay tiri xubnaha golaha ammaanka waxay cambaareeyeen weerarada argagixiso ee Al-Shabaab. goluhu wuxuu xaqiijinayaa midnimada dhuleed ee Soomaaliya. shirkii golaha ammaanka ee talaadadii shalay dhacay oo ahaa mid ay albaabada u xirnaayeen ayaa waxaa ku baaqday dowladda Britain maalin kadib markii la dhaafay muddadii loo qabtay in madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada Soomaalida ay go'aan uga soo saaraan doorashada dowladda cusub ee Soomaaliya. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in 22 bishan uu mar kale ka shiro arrimaha Soomaaliya, iyadoo la filayo in shirkaasi uu ku cusboonaysiiyo muddada howlgalka ciidanka midowga Afrika ee ka howlgala Soomaaliya. mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo warbixintaasi inoo akhrinayay. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. bandhiga VOA. barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a. bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga v o a.
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah. toddobaadkan waxaa dalka jabuuti lagu soo gebagabeeyey shir looga hadlayay sidii loo soo saari lahaa kaltirsi ama kalendar ay soomaali leedahay. shirka dood cilmeedka oo ka dhacay xarunta jaamacadda jabuuti ayaa waxaa ka qayb galay cirmaallo, taariikhyahanno, cilmi baarayaal iyo qorayaal ka kala yimid dhammaan gobollada soomaalida. aqoon-yahanada ka qayb galay shirkaasi ayaa waxaa ka mid ahaa maxamuud cabdi cusmaan oo isagu ka mid ahaa dadkii shirka la tegay kaltirsi uu isagu soo saaray. nuur xasan nuur ayuuna ugu warramay wixii looga hadlay dood cilmiyeedda. wuxuu ku saabsanay midaynta kaltirsiga soomaalida ay leedahay maamulada shantooda ay kala degan tahay ama shanton soomaali waxa loo yaqaano kaltirsigeeda ama dhaqanka iyo hiddaha iyada ay wax u leedahay habka tirsiga sanadka iyo 12 bilood iyo 7 maalin iyo habsocodka galaksiyada amaba meerayaalka noocaas oo ku saabsanay in mataqaana ay iska waraystaan dadka loo yaqaano cirmaallo. macnaheeda cirmaal waa dadka xidigiska iyo aqoontooda leh ayaa shanta soomaali iskaga yimaaday meeshaasayna mataqaana aqoontooda iyo mataqaana iyo waayo aragnimo isku waraysteen. cilmi ahaanna isaga mid ay noqdeen, scientific ah isaga mid ay noqdeen. wixii magac ah oo mataqaana ama afguri ama waxa loo yidhaahda lahja deegaan tilmaamayana kulli waa lagu kala duwnaaday, laakiin scientific ah ama cilmiga 365 maalin sanadka uu ku kooban yahay iyo isbuuca 12 bilood oo intaas oo loo yaqaano dabshidka waa laisku waafaqay cilmi ahaan. magac ahaan mataqaana automatic waxay noqotay deegaanada iyo waxyaalaha hadalka dhexdhexaadka mataqaana magaca dhexdhexaadka ayaa la qaatay. waayahay marka maxamuudow, soomaalida kaltirsi ahaan waxa ay inta badan isticmaalaan kan miilaadiga, taariikhda miilaadiga iyo tan hijriga. marka kan soomaaliga ma jiriyey oo hore miyay u isticmaali jireen soomaalida kaligeed horta u gaar ma ahan. waxaan waxa waaye kushati calendar ama kaltirsigan waxaa iska leh ay ka dhaxaysaa qowmiyadaha la yidhahda kushatiga, laakiin si taas ah waxaa u tadbiiqiyey ama taas u isticmaalo shucuubta ama dadka soomaalida ah ayaa aad u isticmaalo oo mataqaanaa dhaqaalahooda ayaa ku bays garaysan. tusaale ahaan sanadka hadda waa jimco, macnaheeda marka waxaa dhammaaday dayr, jiilaalna waa dhammaaday. hadda hoobaan tirsanaynaa sanadka mataqaanaa waa gu iyo dayr iyo xagaa iyo jiilaal waaye. marka hadda waxaan ku jirnaa gugi ayaa tirsigiisa noo bilowday. marka qaabkaas waaye. marka dhaqankaasi marka wuxuu ku midaysan yahay soomaalida ama dhaqandhaqaalaha wuxuu ku saabsan yahay beeraha, kalluumaysiga oo badda ah iyo xoola guurtada mataqaanaa xilliga la hayaamaya ama xilliga mataqaanaa barwaaqada ay tahay. cilmiga noocaasuu ku saabsan yahay. waxauna la socdaa meerayaalka mataqaanaa 7 ah iyo halbeegyadooda. waayahay marka maxamuudow, waxaan u fahmay shirkii jabuuti lagu soo gebagabeeyey oo ay isugu yimaadeen cirmaalada soomaalida in looga hadlay midaynta sidii loo heli lahaa kalendar ama kaltirsi oo ay soomaali oo dhan leedahay oo ay ku fahmi karaan maaragtay sanadka. si fiican. marka maxaa ka soo saarteen gebagabadii waxaan ka soo saarnay in mataqaanaa kaltirsigaasi soomaalida aan u sheegayno inuu yahay mid soo jireen. soomaalida cilmi khaasa oo ab laga soo gaara ay leeyihiin. aan horta kuwa soomaalida fariin ugu faraynay. waxaa kaloo aan mataqaanaa aan samaysanay guddiyo iyo xarumo oo aan dowladaha shanta soomaaliyeed aan ku kala lahaan doono si aan ula soconno saadaasha ama aan warbixino. aan marti aan ugu noqonin mataqaanaa bilaha iyo sheegidooda iyo xilliga ramadaanka ama bisha ramadaan oo kale la sheegayo kale aan dowlada sacuudi oo mataqaana dowladaha sida sacuudiga oo kale laga warad suga aan marti ugu noqon doono. annaga aan sheegi doono
oo nagala wardhowri doono gruubkeena mataqaanaa shanta ay ka kooban soomaaliya idil si mataqaanaa arrimaheena diintan aan u ilaalino keenna dhaqaalana aan u ilaalino oon la soconno jawiga iyo khataraha dhacayo marka intaasaan kusoo gabagabaynay wixii marka dhiman mataqaanaa qof kasta oo cilmigaas yaqaana oo soo dhaweynaynaa oo wax ku darayo warbixin dheerna ka hayo cilmigaasi insha allahu tacaala safxad furan waaye waana horumari doonaa insha allahu tacaala maxaa yeelay cilmiga hadda gregorianka calendarka hadda december ilaa january ilaa december wuxuu saxmi doonaa qalabaa ka jira 2200 uu saxmi doonaa intaasi waxaa ku socon doona editigaa ku socon doonaa ama mataqaanaa saxidaa ku socon doonto annagana sidoo kale keenna ma qaldano oo waa nadiif laakiin afguriya tiro badan qaamuusan u yeeli doonaa oo badan waan dhihi doona qaamuuskan wuxuu ka hadlaa magacaha bilaha iyo meelaha la kala degan yahay iyo magaca loo yaqaano qaamuuska bilaha iyo sanadka iyo ayaamaha waxaasaan samay doonaa hadduu alla idmo laakiin scientific ah cilmahan waa isku waafaq kaasina waxa uu ahaa maxamuud cabdi cusmaan oo ka mid ahaa dadkii ka qayb galay dood cilmiyeedii lagu qabtay jabuuti wuxuu u warramayey nuur xasan nuur. dalalka iiraan iyo maraykanka ayaa isku maandhaafsan sidii loo soo celin lahaa kalsoonidii labada dhinac ee la xiriira heshiiskii xakamaynta barnaamijka nukliyarka ee dalka iiraan iyadoo labada dal uu midbaka kale u sheegayo in uu tallaabada koowaad qaado. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada qaahire ka soo diray wariyaha v o eda xuseen cismaan saxnuuni. madaxweynaha dowladda iiraan xasan ruuxaani ayaa sheegay in dowladdiisa aysan ku laaban doonin fulinta shuruudaha heshiiska barnaamijkeeda nukliyerka tan iyo inta ay dowladda maraykanka dib ugu laabanayso heshiiskaasi. xasan ruuxaani ayaa u sheegay warbaahinta dalkiisa maamulka cusub ee dowladda maraykanka in aysan weli qaadin tallaabo wanaagsan oo ku aadan dhinaca dowladda iiraan. sidoo kale madaxweynaha dalka iiraan ayaa xusay in dowladdiisa ay fulin doonto heshiiska haddii dhinacyada saxiixa heshiiska nukliyerka ay fuliyaan. hadalka madaxweyne ruuxaani ayaa yimid saacado kadib markii wasiirka mukhaabaraadka dalka iiraan maxamuud calawi uu ka digay in dowladdiisa ay qaadayso dhabaha ay ku samaysanayso hubka nukliyerka haddii ay sii socdaan cunaqabataynta saaran iiraan. waa sidii uu baahiyey tiifiga qaranka ee dalka iiraan. barnaamijkeena nukliyerka waa mid nabadeed, fadwada murshidkana waa mid mamnuucaysa in hubka nukliyerka aan helno, laakiin haddii lagu qasbo dowladda iiraan dhankaasi waa ay qaadaysaa, mana aha qalad ay gelayso iiraan ee waa mid ay gelayaan dowladaha reer galbeedka, ayuu yidhi maxamuud calawi oo la hadlayay tv-ga dalkiisa. wasiirka mukhaabaraadka ama sirdoonka ee dalka iiraan ayaa hoose ka cariiqay in dowladdiisa aysan lahayn qorshe ay ku doonayso in ay hesho hubka nukliyerka marka la eego duruufaha haatan ka jira mandiqada. arrimahan ayaa imaanaya xili maalintii axadda murshidka guud ee dalka iiraan cali kamani uu ku booriyey dowladda maraykanka in ay qaado cunaqabataynta dalkiisa. waa haddii maamulka maraykanka uu doonayo buu yidhi in dowladda iiraan ay fuliso heshiiska nukliyerka oo ay la saxiixatay quwadaha caalamka sannadii 2015. laakiin madaxweynaha dowladda maraykanka joe biden ayaa iska diiday baaqa ka soo yeeray dhanka iiraan, waxa uuna sheegay in xukuumadda washington aysan qaadi doonin tallaabada ugu horaysa. baarlamaanka dalka iiraan ayaa dhowaan ansixiyey qaanuunka mamnuucaya baarayaasha caalamka ee hubka nukliyerka in ay galaan dalkaasi, kaasoo ka dhigan in dowladda iiraan ay ku xadgudubtay heshiiska barnaamijkeeda nukliyerka oo ay la saxiixatay dowladaha awoodda badan ee caalamka. tallaabadan ayay xukuumadda tehraan ay qaaday kadib markii la dilay caalimka reer iiraan muxsin fakhri bishii diseembar ee sannadkii hore. xuseen saxnuuni, v o a, qaahira.
goodhow waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida iyo xuseen barre aadan. gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee sanadka maraykanka Bob Mendes ayaa bayaan ka soo saaray waxa uu ugu yeedhay xasaradaha doorasho ee kasii daraya ee Soomaaliya kadib markii muddaxileedka madaxweyne Farmaajo uu dhammaaday iyadoo oo aan heshiis laga gaadhin fulinta doorashooyinkii hore loo qorsheeyey. Bob Mendes oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee dalkan maraykanka lagana soo doorto gobolka New Jersey ayaa sheegay inuu aada uga xun yahay xasaradaha ka dhalan kara ismariwaaga siyaasadeed ee hadda taagan. waxaanu intaasi ku daray in tani ay halis weyn ku tahay xasiloonida guud ee dalka. golaha sanadka ee maraykanka ayaa cod ku ogolaaday in si rasmi ah loo bilaabi karo dhageysiga dacwadda xilka qaadista madaxweynihii hore Donald Trump. qaranada madaxweyne Trump difaacaya ayaa ku dooday in aqalka odayaashu aanu sharci dastuuri ah u haysan dhageysiga dacwadda uu aqalka wakiiladu kasoo gudbiyey madaxweynihii hore, taasoo lagu eedeeyey kicin fal lagu ridi rabay dowladda kadib weerarkii ay taageerayaasha madaxweyne Trump bishii hore ku qaadeen xarunta koongareska. codka ay aqalka odayaashu u qaadeen socodsiinta dhageysiga xilka qaadista Trump ee aqalka sare ayaa waxaa ugu codeeyey 56 mudane halka ay 44 kasoo horjeesteen. maanta iyo berri ayaa lagu wadaa in sanadku dhageysto doodaha labada dhinac oo kala ah guddi ka socda aqalka wakiilada oo dimuqraadi ah iyo qareenada difaacaya madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump. dhageysigaasi kadib ayuu sanadku u codayn doonaa xilka qaadista Trump, laakiin dimuqraadiyiinta oo hadda haysta aqlabiyadda sanadka ayaa u baahan in ay helaan ugu yaraan 17 mudane oo jamhuuri ah si ay dembiga ugu helaan madaxweyne Trump. dalka Myanmar waxaa maalintii shanaad galay dibadbaxyada looga soo horjeedo afgembiga uu sameeyey militariga dalkaasi isagoo xilkii ka qaaday dowladdii rayidka ahayd ee dalkaasi ka talinaysay. banaanbaxyada ayaa weli socda inkastoo ciidamada ammaanku ay xoojiyeen adeegsiga awoodda ay dadka ku kala dareerinayaan. ciidamada Myanmar ayaa rasaas digniin ah kor u ridayay iyagoo sidoo kale biyo awood badan ku furay dadka banaanbaxaya, arrintaasi oo sida wararka qaar ay sheegayaan dhaawac u geysatay qaar ka mid a dadka mudaharaadaya. dhakhtar ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo ayaa laanta la hadasha Myanmar ee VOA-da u sheegay in isbitaalka caasimada Naypyidaw uu ku daweeyey 2 qof oo dhaawac ah, isagoo sheegay inuu rumaysan yahay in rasaas loo adeegsaday 2daasi qof ee dhaawac ah ee uu daweeyey. haatan dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban iyo xasan kaafi qoyste. maalmihii ugu dambeeyey waxaa si joogto ah muqdisho uga soconayay kulamo ay yeelanayeen qaybaha kala duwan ee haweenka Soomaalida, kaasoo ay uga doodayeen sidii ay ku xaqiijin lahaayeen qoondada siyaasadeed ee 30% ah. haddaba ma dhici kartaa in doorashooyinka soo socda haweenku ay helaan saamigooda siyaasadeed ee ay baadigoobka ugu jiraan? waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab iyo Farxiye Jaamac oo ka tirsan gabdhaha aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Jawaahir. waa mahadsantahay. marka hore VOA-da ayaan u mahad celinayaa. anigu waxaa ii muuqanayo fafaale aad u qurux badan ee gabdhaha Soomaaliyeed. doorashooyinka 24 kursi ayaan hore u haysanay, 30% iyo koonto ayaan in badan ku dagaalamaynay. meelo badan ay gabdhuhu ay joogaan oo ah shaqooyinka kala duwan inay qaban karaan, taasoo annaga inagu xiran. waxaan aaminsanahay marka rajada ii muuqanaysa inay tahay meesha diinka wuxuu yiri marka loo tashaday meesha la igu tashanayso ilaahay ma joogin. waxaa aniga ii muuqanayo wanaag oo ah in gabdhuhu ay sanadkan ay diyaar garaysan yihiin. 30% waa koontada aan rabno in la xaqiijiyo oo ah in dumarku kuraasta 24 aan haysano iyo 6 dhiman. laakiin waxa rajada anu aan qaba ay tahay kuraas ka badan inay soo xarootaan rajaynaya, taasoo rag badan kuraas ay ku fadhiyaan gabdhuhu inay u tartami karaan, aan ka soo qaadan karno 30% aan ku guuleysan karna ay muuqanaysa.
waayo markaa fiirisid gabdhaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan civil society-ga gabdhaha qurba joogta waxay sameeyeen kulamo aad u badan waxay sameeyeen shirar waxa maaragtay socda baraarujin gabdhuhu in badanna waxaan anagu ku haminaynay nabadda dadka ka shaqayn kara inaan anagu nahay haddii aan u badanno kuraasta baarlamaanka oo marka la fiiriyo aan ka nahay minority-ga haddii gabdhuhu u bataan inta yar ee hadda ku jira baarlamaanka way gilgilaan waxayna difaacaan dowladnimada haddii ay ka bataanna waxaan aaminsanahay nabadda aan maanta haysano iyo in ka badan marka gabdhaha u tartamida baarlamaanka kaliya maana prime ministerka iyo madaxweyne iyo saraakiil iyo xilalka waaweyn ee dalka laga qabto iyo wasiiradaba intaba inay gabdhuhu u furan yihiin marka gabdhuhu hadda way diyaarsan yihiin aqoon-yahanadu way badan yihiin rajadayda aniga gaar ahaan iyo haweenka Soomaaliyeedba waxa inoo muuqanaya guulo aan la maleysanayn inay gabdhuhu gaari doonaan xaqiijinta baarlamaanka ku biiritaanka labada aqal haday noqoto sanadka iyo haday noqoto halkaanba dad badan oo aan laga maleysanayn inay ku soo bixi doonaan kuraasyo badan oo hadda raggu ay ayagu isku qoreen inay mar walba leeyihiin ayaan kulaalaynaa hayo farxiyo bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan u mahadcelinayaa Xasan Kaafi Qoyste iyo dhammaan VOA-do dhan aniga waxaan walaac weyn ka muujinayaa inay maanta kursiga gabdhaha loogu talagalay ayna bataatanba meeshii loogu talagalay ay gaarin sidaan ognahay 20 iyo sanadkii 4 sano la soo dhaafay waxaan taagneen 24 hadda waxaan loo astay inay kursiga gabar ku fadhido maana kursi kale taba ayna gabar u soo tartami karin taasna macquul ila maahan inay macsuudan gaari karaan walaac weyn baalka ka muujinaya waxa bataatanba faraha nooga baxay waxay tahay kuraasti aan gabdhuhu ay isku soo tartami jireen oo noo qoondeysnayn aniga ahaantayda waxa ii muuqato walaacayna gabdhaha halka doorka ay ku lahaayeen dawladda ay si yaraanayso haddaan tusaale yar ku siiyo waxa jira sharciyo gabdhaha lagu taageerayo kuraastooda oo baarlamaanka la horgeeyay bataatan taas wax laga ma saxiixin lama ogolaanin marka inaan soo noqonayno 24 maanta ma aaminsani mana macquul ma noqonayso iska daa sodan ah hela ama konton aan gaarno aniga aragti ahaantayda waa tahay maxaysan macquul ku ahayn waxayna macquul ku ahayn waxay tahay haddii sharcigana aan la saxiixin oo maanta la isku raacin aniga waxaan aaminsanahay doorkii gabdhaha ay ku lahayn xildhibaanada iyo boosaska waaweyn ay ka soo muuqanayaan bataatanba inay maartay meesha ka sii wiiqmayso oo abadan ay meesha ka muuqanin caqabadaha ay ku soo bixayna waxay tahay horta maadaama doorashada ay tahay doorasho dadban sidaan ognahayna maartay waxa 101 wili waa odayaashii oo meesha wili taagan gabar kasta faasiwan waxa haysto markii odayga u tagto wuxuu ku xukumayaa maartay wiil iyo gabar election buu sameeynaya marna wuxuu leeyahay lacag buu fiirsanayaa marna wuxuu fiirsanayaa wiil baa biri wax ku tarayo oo gabadha qiimaheeda ma soo fiirnaya marka labaad waxa leeyahay gabadha reer hebel bay u dhaxdaayo halkaas caqabad baa ka hor imaanayso marka aniga ahaantayda wili waxa taagan caqabadii odayaashii baa taagan oo gabadhii aan wili balansiga aan loo sameeynin Jawaahir waxaad sheegtay in doorashooyinka soo socda ay haweenku inta badan ku soo bixi doonaan maxay tahay rajada ku muuqata waxaan aaminsanahay aragtida haweenka Soomaaliyeed iyo rajada inoo muuqato oo ah marnaba inaana anagu aanan isdiibin waa soconaynaa waa guuleysanaynaa waa ii muuqataa waxay ay noqotaba dalkan haweenka Soomaaliyeed xaqay ku leeyihiin waqti adagan soo gelinay waa wadankeennii cidna marti uga noqon mayno anu marka maba aaminsani inay gabdhaha Soomaaliyeed hankooda ka dhigaan inaan anagu maaragtay aan nahay kuwo waxbaryaaya reerka anagu waa ka wada dhalanay waa u wada dhaxnay waxaan u arkayaa inaanay waxba noo diidi karinin marka annagay nagu xiranta hadba sida isku kalsooni galno waxa tusaale noogu filan doorashadii hore xildhibaan Xamza xildhibaanad la yiraahdo Jubbaland ka soo galaysay 4 wiil ay la tartantay wayna ka qaatay marka gabdhaha Soomaaliyeed kalsoonida noocaas oo kale ah ku jirta iyo isku filnaansho ah inay tahay gabar Soomaaliyeed idina ayna hor istaagi karin anu marka waxaan qabaa rajadaydu ay tahay sida farxiyo ma qabo inay gabdhaha dhalinyarada ay qoostaan waa aqoon-yahanadii waa gabdho dhalinyaro ah waa inaanay isdhiibin waa inay maaragtay ay farxiyo ka mid noqon karto kuwa u tartamaya kuraasta cidna kaama hor istaagi karto waxaan anagu u dagaalamaynay waxay ahayd sida farxiyo kale dhalinyarada dhibaatada aan ku korinay ee aan wax ku barnay in maanta anigu aan iraado waxna heli maayo guryahan joogno aqli ma noqonayso waanu dagaalamaynaa waanu dhimanay dalka waanu dhiig baxnay waa u rafaadnay qurbaan u aadnay geedaha hoostoodana weli waxa roobka ku daaya waa dumar Soomaaliyeed marka maba dhici kartaba in si kastaba aan dhahno
doorashadii waan ka haraynaa hadday noqoto dhaqaale iyo hadday noqoto dhan kaleba shuruucaa jirto xeeraa jira kaasaan raadinaynaa waa ku dagaalamaynaa gabdha aqoon-yahanaan leenahay abukaatayaalaan leenahay xeer ilaalayaalaan leenahay aqoon-yahanaanu leenahay gabdhaha maaragtay bulshada u adeegaya habeen iyo maalin u taagan marnaba kama quusan doono ilaa aan xaqiijino koontada haweenka iyo inaan helno kuraas ka badanba. farxiyo maxaad ku sababaynaysaa in dumarku aanay wax natiijo ah ka keeni doonin doorashooyinka nagu soo aadan? waxaan ku sabaynayaa aniga inay maanta gabdhuhu ay door muhiima ay ka qaadan karin kow horta dhaqaalaha maxaa yeelay dhaqaalaha gabar wax soo baratay oo juhdi soo bixisay qof kasta wuxuu ku fakiray in qof iyo codkiisa sanadkan la gaarayo haddana waxaa welina hortaagan odayaashii iyo doorashadii dadbaneed baan weli taaganahay gabar ma haysato 101 oday oo mid kasta uu ku fakirayo 10,000 20,000 uu ku fakirayo gabar maanta ka bixi karta ma taagana hadday jirto maca gabdhaha sanadka 2024 oo noogu fadhida xildhibaanada ah inaan la soo tartamno waxa naga reebay dhaqaalaha naga reebayo odaygu wuxuu raasanayaa meesha dhaqaale leh jeeb buu raasanayaa gaari cad iyo marka loo qabto iyo guri cad loo gado halkaas uu naga aadiyaa marka waxaan aniga ku saleynayaa waxay tahay inayna maanta bataata ma gabdho ay soo haweysan karin ee inta lagu jiro oday iyo maartay ergada iyo doorasho dadba inta lagu jiro inayna gabdhaha aqoon-yahanka ayna soo haweysan karin inay meesha tagaan ee qof iyo codkiisa aqoontiisa marka lagu soo baxayo waa la haweysan qof kastana markaas hidadiilo fiican buu ka dhalin karaa maamadu waxay noo sheegtay in gabdhaha loo ururinayo lacag si loo soo bixiyo waan maqalnaa gabdho badan oo han lehna way jirtaa gabdhaha noogu jir xildhibaanada waxay dhahan waa in taageerina gabdhuha soo baxaan soo kacaan haddana ma aragno maaragtay doorkii loogu talagalay gabdhuhu inay isgarab qabtaan ama inay soo istaagaan meesha ma aragno annagoo kale hadda diyaar waxaan nahay garab qabasho ama baalki dhaqaalihiina ma haysano oday kasta marka u tagto wuxuu ku leeyahay maxaa ka soo horeeyo nin wiilkii la tartamay lacagta adduunku haysta aniga ma haysta dan 10,000 oo dawladda aan soo saxiixa aan ilkeyga ku soo dhacsaday afkeyga ma heli karo 101daas oday ergada ah inaan wada qanciyo ma heli karo marka dad miinus waxay noqonaysaa inaan aan ku dhiiran oo banaanka aan ka istaagnaado marka waxaan suganaynaa annagoo dhan inay bal qof iyo codkiisa la gaaro dawlad kasta waxay noo ballan qaadaa markii la gaaro xilliga doorashada waxay noo ballan qaadaa inay gabdhuhu kor isku soo qaadi doonaan madaxweyne kasta markuu soo sharaxay leeyahay boqolkiiba gabdhaha intaasaan gaarsiinaya 4 sano oo lagu jirayna wax olo loo sameeyo ama meel inta la iskugu yimaado war gabdhaha halkay gaarsiinaa ma la sameeyo qof kasta xilliga doorashada laga wada hadlaa haddana maaragtay meesheeda looga dhaqaaqa aniga waxaan dhihi lahaa halkaas walaac weyn baa iga muuqdo maanta gabdhuhu way ku dulman yihiin dawladda waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Jawaahir Baarqab horta xalka intaan u galin mas'uuliyaddu waa wax weyn wax yarna ma aha midka qaadi kara oo aan rabno inuu baarlamaanka inagu matalo waa in uu ku xisaabtamo inuu yahay qof muwaadin Soomaaliyeed u adeega bulshada dhammaantood way wada shaqeynayeen waxaan ku amaanaynaa inuu ahaa baarlamaankan tobnaad baarlamaankii ugu saxmadda iyo qaylada yaraa wada shaqeyntooda marka loo fiiriyo marka 101 markay soo xulaan waxay la tahay meeshaas laaluushkii inuu yaraanayo oo dadku ay qofka quality-giisa ku dooran doonaan markuu qofku hadlo ay akhriyaan waa markaan leenahay bulshadu waa inay wax akhriyaan waxay dhagaysan doonaan akhrin doonaan markay u soo gudbiyaan siifiyadooda iyo qofkan muxuu yahay marka horeba asal ahaan ma aha qof u qalma bulshada laakiin haddaan imid qurbahan ka imid kursiyaan rabaa ama waan joogay oo haddaan kooye qofna laga yeeli maayo waxaa la rabaa bulshadu inay ku xisaabtamaan midka shalay u joogo wax u qabanayana in la soo celiyo dekaan wax u qabanayna ayaga iska diraayaba marka 101dan caqabad ma keeni doonto oo waa lagu guuleysan doonaa aniga raayigayga anigu mar walbaba waxa ii muuqanaya ifaalada ah in gabdhaha Soomaaliyeed iyo baarlamaanka guud ahaan labada aqalba aan imaan doono hayo farxiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa xalka horta intaan la gaarin aan ku sheego maaragtay inay horta gabdhuhu xaqiran yihiin gudiyadii doorashada oo la soo dooray maca gabdhuhu inayna saami ku lahayn oo maaragtay qof iyo ama hal qof ama zero ay ka wada yihiin irgadii maca doorashada inay maaragtay gabdhaha aan ka soo muuqanaynin taas horta aan maaragtay kugu tusaaleeyay halkaas inay gabdhuhu marka koowaad ku xaqiran yihiin hadii meelahaas gabdhuhu gudiga doorashada ay ka soo muuqan lahaayeen rajo fiican baa igal
lahayd oo maca waxaan noo fududaan lahayd inay gabdhuhu dhiirigelin helaan haddayna soo bixin baarlamaanka kusoo bixin senatarada anigu halka waxay la tahay intaan soo joognay dowlad waxay noo qaadaysay ballanqaadyadiina wax noo fuliya maana arkin marka xalku keliya aan isdhigi karo gabdhuhu way ku gaarayaan hadafkooda iyo guulahooda way ku gaarayaan waa qof iyo cod in la helo sababtoo ah hadda ma hayno ballanqaadkiina loo sameeyey haddiina loo fulin lahaa waxaan arki lahayn maaragtay hididiilada iyo maaragtay inaan maaragtay rabitaankeena amaanta ka miro dhalin lahayn caqabadihii meel bay naga haysteen meel ballanqaadyadii maanta nolooma fulinin marka waxaan jeclaysan lahayn maaragtay inaan gaarno qof iyo cod taas unbaa uga bixi karnaa inaan maanta aan ku gaarno hadafkeenna intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir jawaahir baarqab iyo farxiye jaamac oo ka mid a gabdhaha aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday mahadsanid xasan kaafi qoysta ayuu kaasi ahaa oo soo jeedinayay dooda gaaban haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal haddii inta maansada soomaalida la dhex qaado loo dhabagalo tabaha iyada iyo maahmaahda la isugu dhafo ee ay maansayahanadu doodahooda ugu cusleeyaan waxaynan ka maarmi karayn inaynu dib u milicsanno gabayadii uu inoo reebay allaha u naxariistee gabyaagii reer ciideedka ahaa ee la odhan jiray samatar baxnaan aan haddaba idiin soo gudbiyo qayb ka mida mar walba maansadiisa ay murtidu ku shaqlan tahay aana idinku jalbeebiyo sida quruxda badan ee tixihiisa qaarkood uu ugu adeegsaday laba maahmaahood oo ay soomaalidu aad u taqaan midda koowaadi waa tii ahayd bowdyo rageed midba maalin qaawan oo ah maahmaahayna baraysa inay dunidu meerta tahay oo jabka iyo laalaadku aanay ninna si gaara ugu xukunayn barwaaqada iyo baraaraha joogtada ahayna aanay mid kale u qorayn maanta qofka ladani berri iskuma hubi karo haatan kii laalaadana ha u malayn sidiisaas inuu ku waari doono sidaa darteed waxaa habboon inaan marnaba waayaha la isa siin oo kii markaa baraaro joogaa uu kan tabaalaysan u gurmado dhulkana uu ka qaado hase ahaatee inkastoo ay taasi jirto aadna mooddo inay tahay waayo aragnimo runnimadeeda uu aadanuhu sabaanno hore ka faraxashay haddana lama waayo dadka qaar iska dhagatira oo u maamusha sidii iyagoo samaan iyo badbaado joogto ah wareegga ayaamaha kula ballansan maansayahanada soomaaliduna in badan bay maansooyinkooda fikraddaas kaga hadleen iyagoo ugu dardaar warinaya calooshilla ciyaarka sareedada uu maalintaa haysto go'aamadiisa oo idil ku saleeya dabadeedna intuu kibirtaabto qaraabada jilicsan iyo dadka liita aan u gargaarine ku tunta haddii uusan ku tumanna is-ilowsiiya amaba goomoodhi ku garamara allaha u naxariistee duqii maansayahanada soomaaliyeed sayid maxamed cabdilla xasan ayaa ka mid ahaa raggii gabyi ogaa ee goor hore inagu wargeliyey isku hadlaynta wareegga ayaamuhu inay doqoniino un tahay tuducyo ku jiray gabayadiisa midkood ayuu sayidku ku bilaabay cirkaan di'in abaar daaliyaa dunida oo qiiqday dayax ururta daariga ka maray dirirka oo liiqay marunbaa daruuraha cusayb soo dibbiriyaaye dayraanka curashaa ku xigi daacigii sabane marunbuu darooraa intuu daadka soo rogo baldayaay duraabtaa horuu daafta mariyaaye nin dalleensan inuu duukhayay doqontu moodaaye inkastuu duqaaraha kan dhacay dulugla cayroobo ha u dayrin deeqii alluu dooc ka sugayaaye gabyaagii isna murtidhaariga ahaa ee ay sayidka isku xilli noolaayeen isku gadana ahaayeen lana odhan jiray qamaan bulxan waa kii isla fikraddaas ku soo koobay saddexdii meelis ee ahaa adduun waa har labadiisa gelin
waana la hubaaye halgalgalatay waxa looga dhigay yaa ninuu harine marunbaa saboo la harqiyaa hodanna deegaay. haddaba murtida ay xambaarsan tahay mahmaahdii ahayd bawdya rageed midba maalin qaawan isaga oo maanka ku haya ayuu samatar baxnaana jeer u gebiyey niman ay hilba ahaayeen oo koluu isagu tabaalaysnaa iyagu barwaaqaysnaa maantaas oo kale niman dhaqan ahaan ay ahayd inuu hiil iyo hooba ka helo ha yeeshee aan midnaba ula soo degdegin. dabadeedna nabsiga intuu fadhiga ka kiciyey ayuu ugu dardaar weriyey halkii uu maantaa joogay in sidii la arki jiray maalin maalmaha ka mida ay iyaguna ku dambayn doonaan. sidoo kale intuu nimankii dhaawaday ayuu ugu dambaystiina wuxuu ku ducaystay iyaga oo dandaraysani in dayrta dhow ay u soo baahdaan iyadoo markaas uu isagu ka soo kabtay dhibtii markaa haysatay ee ay ku fiirsanayeen. maalmahaas gabay uu arrintaa ka tiriyey tuduc ka mid ah oo mahmaahdaas aynu ka aqoonsan karayno ayaa wuxuu ahaa: bawdada raggaba maalin bay dani bannaysaaye nin barwaaqo seexdaba wadbaan laga badhiinayne idinkoo bukooda iyo anoo baarax nabadeeda oo aan bogsaday shuushku waa naga baxayaaye oo ay barraani u kulmaan beliya raaskiinnu rabbi waxaan ka beegsanahayaa biligta dayreed. mahmaada labaadi waa tii ahayd lafa maroodi iyagaa la isku jabiyaa oo loola jeedo maalinta si uun la isu hayo laba safna la noqdo qofba qofka u dhigmi kara ayaa lagu beegaa. waxaa kaloo suuragal ah ayna u badan tahay in loola jeedo qofba qofkii uu xigo ayaa laga horgeeyaa si labadooda mooyaane ay dadka inta kale u badbaado. gabayadiisa midkood xilligii uu samatar mahmaahda u adeegsanayay waxaa buuhoodla iyo agagaarkiisa ka aloosnayd colaad maanso oo la isku ilka beelay hal abuuradii reer ciideedka ahaa intoodii badnaydna ay ka qayb qaateen. waxay ahayd horaantii sannadihii lixdanadii qarnigii aynu soo dhaafnay. labada dhinacna waxaa kala hogaaminayay oo hortii ay eedu dhex martay allaha u wada naxariistee labadii gabyaa ee lagu kala magacaabi jiray aadan yuusuf axmed oo aadan carab loo yiqiin iyo cumar cigaal oo midkood walba ay kooxi u sacabtumaysay. samatar oo intii muddo ah aan silsiladaas wax ku darsan ayaa gadaalkii wuxuu tiriyey tix uu dhexdhexaad isaga dhigaayo ha yeeshee ay dhab uga muuqato inuu ugu hiilinayay aadan carab oo ay ilmo adeer labaad ahaayeen. marka horeba intuu aadan si xad dhaafa u buunbuuniyey ayuu ku tilmaamay libaax ba'an oo wixii ka hor yimaadaba qowlallada ku hubsada. aar baa bushiisa laga argagaxo oo miciyaha isku lisaaya, libaax laga wada geegay oo buuhoodla oo idin looga cararay. aar isaga samatara mooye cid kale oo u babac dhigi kartaa aanay jirin. maanseyahanadii ay ishayeen intuu u bajiyo oo weliba biiro ku wada sheego ayuu haddana kula talinayaa aarkaa hamaansaday inay naftooda kala baxsadaanoo isaga oo qura ayuunbaa u bareeri karee ay labadooda isu daayaan. arrintaas gabaygii uu ka tiriyey qayb ka mid ahayd oo mahmaahdii lafa maroodi iyagaa la isku jabiyaa uu ku mariimay ayuu ku yidhi: bawdada maroodiga markay badowdu dhuuxayso ma burburiyo nabarkii kaloy bidixdu qaadaaye biixida tagoogada horaa lagu budeeyaaye ogow balaba beladii xigtaah la isku beegaaye. waxaa iyaduna jirta mahmaah si weyn uga dhex muuqata maansada soomaalida, gaar ahaan tixaha uu gabyaagu waanada ula jeedo ee istaakulaynta ku saabsan. waa mahmaahdii ahayd gacmo wadajir bay wax ku gooyaan. sida ka muuqatana waxay dhiirigelinaysaa midnimada iyo in koox ahaan wax loo qabsado intii keli iyo nintooxsi wax lagu qabsan lahaa. taasna waxaa gabayadiisa midkood si aad u qurux badan uga soo saaray murti ay soomaalidu badiba taqaan oo allaha u naxariistay gabyaagii reer burco ee la oran jiray cabdilaahi muuse uu tiriyey. isaga oo malaha rag uu dhalay amaba ay xigto ahaayeen waaninaya ayuu cabdilaahi tiriyey gabay ujeedadiisa uu mahmaahdan tiirdhexaad uga dhigay. wuxuu yidhi:
istaageerid bay laba gacmood tamar ku yeeshaane tiska waxaa la qaadaa markay tiirisaa bidixe hadday midigtu keli taagan tahay dahar ma goyseen. dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbo idmo. mahadsanid axmed faarax cali daaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha ayaad la socoteen waxaana idinkaga imaanayay laanta af soomaaliga ee v o a. qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo xuseen barre aadan. gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee sanadka maraykanka bob mendes ayaa bayaan ka soo saaray waxa uu ugu yeedhay xasradaha doorasho ee kasii daraya ee soomaaliya kadib markii muddaxileedka madaxweyne farmaajo uu dhammaaday iyada oo aan heshiis laga gaadhin fulinta doorashooyinkii hore loo qorsheeyey. bob mendes oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee dalkan maraykanka lagana soo doorto gobolka new jersey ayaa sheegay inuu aada uga xun yahay xasradaha ka dhalan kara ismariwaaga siyaasadeed ee hadda taagan. waxaanu intaasi ku daray in tani ay halis weyn ku tahay xasiloonida guud ee dalka. golaha sanadka ee maraykanka ayaa cod ku ogolaaday in si rasmi ah loo bilaabi karo dhageysiga dacwadda xilka qaadista madaxweynihii hore Donald Trump. aad buu u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo warka caalamka inoo akhrinayay. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. guud ahaan dhegeystayaal idaacaddii galabnimo ayaa intaasi ku eeg. waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandurey. intaan mar kale kulmayno waxaan idin leenahay nabadgelyo. tani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda Maraykanka. dowladda Maraykanka ayaa si aada uga walaacsan afgembigii militariga Burma ay kula wareegeen xukunka dalkaasi. militariga ayaa xabsiga dhigay hogaamiyaasha xisbiga talada Burma hayay ee NLD oo ay ku jirto hogaamiyihii rayidka ee Aung San Suu Kyi iyo madaxweyne Win Myint oo ay weheliyaan golaha wasiirada, madaxda gobolada, siyaasiyiinta mucaaradka, qorayaasha iyo wakiilada dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka. baarlamaanka Burma oo loo mudeeyey inuu qabto kalfadhigiisii ugu horeeyey ee tan iyo wixii ka dambeeyey doorashadii 8 November ee sanadkii hore, taasoo uu xisbiga NLD dhinacii kasoo horjeeday kaga guulaystay 83% kuraastii loo tartamayay. madaxa xisbiga NLD Aung San Suu Kyi oo hadda militariga u xiran ayaa ahayd hogaamiyihii rayidka ee dalka Burma tan iyo sanadkii 2015 markaas oo ay xafiiska qabatay. hogaamiyaasha militariga Burma ayaa kasoo horjeestay inay aqbalaan natiijadii kasoo baxday doorashada iyagoo ugu yeeray doorasho la musuqmaasuqay. markii ay ku guuldaraysteen in eedda musuqmaasuqa ay soo jeediyeen ay saameyn culus yeelato, ay ciidamada isku hareereeyeen dhismaha xarunta baarlamaanka waxayna fuliyeen afgembi militari oo ay xukunka ku qabsadeen. militariga Burma ayaa telefishinka kaga dhawaaqay 1 sano oo xaalad degdeg ah oo dalkaasi ay kusoo rogeen, iyagoo sheegtay in dastuurkii 2008 uu militariga awood u siinayo inay ku dhawaaqi karaan xaalad degdeg ah oo guud ahaan dalkaasi oo dhan ah. militariga oo la wareegay kaabayaasha dhaqaalaha ee dalkaasi ayaa qabsaday inta badan wasaaradaha, iyagoo joojiyey badi barnaamijyadii telefishinka uu baahinayay, waxaana ay bilaabeen olole ay ku weerarayaan bulshada rayidka ah. militariga ayaa awoodda u gacangeliyey taliyaha ciidanka General Min Aung Han. intii lagu guda jiray sanadihii ay awoodda qaybsanayeen mas-uuliyiinta rayidka ee lasoo doortay, militarigana waxa ay saameyn muuqata ku yeesheen arrimaha siyaasadda ee Burma. dastuurka dalkaasi ayaa militariga awood u siinaya maamulka wasaaradaha difaaca iyo arrimaha gudaha, taasoo ay usii dheer tahay in askarta loo damaanad qaaday 4 meelood meel ka mid a kuraasta baarlamaanka. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa